السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم صلاة وتسليما يليقان بمقام أمير الأنبياء وإمام المرسلين، وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين، وأشهد أن سيدنا ونبينا وعظيمنا وحبيبنا محمدا رسول الله خاتم الأنبياء والمرسلين. صل اللهم وسلم وبارك على هذا النبي الأمين وعلى آله وصحابته الغر الميامين، وارحم اللهم مشايخنا ووالدينا وأمواتنا وأموات المسلمين أجمعين. walaalahayga Soomaaliyeed meel walba adduunka aad ka joogtiin, waxaan idinkugu salaamay salaamta islaamka. Cajaladan ama klibkan waa casharkii labaad ee ku saabsanaa xadgudubka loo geystay dumarka. qaybtan labaad marka waxaan uga hadli doonaa arinta ku saabsan guurka qofka dumarka ah. xilligee la guursan karaa, da'dee lagu guursan karaa. madaahibteena islaamka oo dhan, madhabta Abi Xaniifa, madhabta Maalik, Shaafici iyo Xambali oo sunniyiinta wada ah, iyo madhabta Daahiriga ahaa Abu Daawud Daahiri ibn Hazm iyo madhabtooda. sidoo kale madaahibta Shiicada 12 Jacfariya iyo madhabta Zaydiya, sidoo kale madhabta Ibaadiya iyo Mu'tazila. intaasoo idil waxay qabaan qofka dumarka ah ama qofka gabadha ah in lagu nikaaxi karo nin markay dhalato, aysan da' ku xirnayn. markii uurka hooyadeeda ka soo baxdo aysan da' ku xirnayn ayaa nin loo nikaaxin karaa. dhibaato male, culimada wax meel way u badan karaan ama waxyaabo qaar way isku raaci karaan, laakiin su'aasha meesha imaanaysa waxay tahay, culimooy maxaa marka daliil idin ah oo caddaynaya qofta dumarka in loo mehrin karo haddiiba ay dhalato? waxay yiraahdeen 3 daliil ayaan haysanaa. tan koowaad oo ah daliil qur'aanka ah, aayad qur'aan ah. tan labaadna waa daliil sunnadii nabigeena calayhi salaatu wasalaam ah. tan saddexaadna waa ijmaac ulama. aayadda quraanka ay soo daliishanayaan waa aayadda ku jirta suurat talaaq oo ilaahay subxaanahu wa ta'aala ka sheekeynaya qofka la furay ciddadeeda. marka ilaahay wuxuu yiri wallaa'i ya'isna min al-mahiid min nisaa'ikum in irtabtum fa ciddatuhunna 3 ashhurin wallaa'i lam yaxidna. dumarkii ka quustay inay caadada u timaado da'dooda weynaatay, ciddadooda waa 3 bilood. haddii ninka ay aqal galaan oo soo furo 3 bilood ay tirsan, ciddadeeda waa intaas. sidoo kale waxaa soo raacay ilaahay quraan ku yiri kuwa aan caadada u imaan. marka waxay yiraahdeen maadaama kuwa aan caadada u imaan lagu sheegay, aayadaas waxay noo cadaysay inay bannaan tahay qofta iyadoon baqaan gaarin caado u imaanin, iyadoo yar ama ha noqoto markii la dhalo la nuujinayo ama markii da'deeda dhowr sano ay jirto laakiin ay qaan gaarin, in loo mehrin karo nin. مفسرين بدنا وكفسرين ابن كثير، القرطبي، ابن جرير الطبري، كتب التفسير حتى سيد قطب بدن كذا آيات صحيح كفسريان خفت يرى ولي ما أردت عن خانجارين ولا لم يحزن كوان عادو إيمانا أو ولي بحيرة هذين آيات ده صحيح حل سي أرنتي خلاف كجري ومرة دي آيات لو سود لي شذي خلاف ما شو كنا ماذا تاوى آيات ده يسود لي شذين حديث إنه يسود لي شنايان guurkii nabigeena calayhi salaatu wasalaam uu guursaday ummul mu'miniina Caaisha loo nikaaxay iyadoo gabar yar ah oon qaan gaarin. oo waliba imaam ibn Hajar al-Asqalani wuxuu leeyahay nabigu wuxuu la aqal galay Caaisha iyadoon wali caadada u imaan. taana waa tii sunnada soo daliishanayaan. tan kalena oo ku saabsan ijmaaca, sida culimo badan qaar aan magaceeda soo sheegi doono hadda ay sheegeen in arintan ijmaac ay tahay oo culimada cid khilaaftay aysan jirin, oo iyadana daliisha ay ka mid tahay meelaha ahkaam sharciga laga qaato. waxa ijmaac qaba oo sheegay imaam Abu Bakr ibn al-Mundhir al-Ishraf ala al-Madahib kitaabkiisa, oo imaam Ahmad Shaafici oo kamid aha. waxa kamid aha dadka ijmaaca ku sheegay arintaas imaam an-Nawawi markuu sharxay Sahih Muslim kutubo kale uu ku sheegay. imaam isagana waxa ahaa Shaafici ah. imaam Ibn Abd al-Barr al-Maliki kitaabkiisa al-Istidhkar isagana wuxuu ku sheegay arintan inay ijmaac tahay. إمام بن بطال أو مالكي أها، إمام المهلب المالكي، إمام أحمد بن حنبل
ويري ليس بين الناس في هذا اختلاف أرنتان ضدك اسكو خلاف ما جرتو قبل مركي دالت إن لون نكاحن كرو إمام المروزي أو شافعي أها إمام البغوي أو شافعي أها إمام الكاساني أو حنفي أه إمام ابن هبيرة الحنبلي إمام ابن رشد المالكي إمام ابن قدامة الحنبلي إمام القرطبي أو مالكي أه إمام الزركشي أو حنبلي أه إمام المرداوي أو حنبلي أه إمام شهاب الدين الرملي أو شافعي أه إيو شيخي قدام بي أو سجن يرعرتها وإجماع وشيخ محمد ابن عبد الوهاب وآل السعودة لا يعني علماء السعودية مذهب أما فكر كان وهابي إنك أساسية أئمة صورنا وحي شيئان إني ما أركت أرنتاس تهي إجماع إن إجماع لو جاري مرك هذا وحي هايستان سانسو شيئا دليل آيات قرآن إيه حديث نبي إيه إجماع مرك سدح دليل أنت آنا باللابن إن أنك هذا أما دود جليو سؤالها أن مرك علماء صوماليات هذا كوان أي مدان سو شيغنا waa ay geeriyoodan laakiin culimada hadda nool su'aalaha aan weydiinayo aan jeclahay inay iga jawaabaan waxay tahay guurka nikaaxa wuxuu dhacaa markuu jiro iijaab iyo qabuul codsi iyo ogolaashadan waxay ku timaadaa qafta markii la socodsiiyo la yiraahdo in hebel ku soo doontay ee ma ogoshahay in lagu nikaaxo in ay ku ogolaato haddaba gabar hadda dhalatay haddaysan waxba ka ogeyn arintaas ama gabar 2 jir ah ama gabar 4 jir ah ama gabar 6 jir ah guurka baysan waxba ka ogeyn sidee loo codsan karaa aynoo ogolaan kartaa codsigiisa loo maaragtay loo soo doonan karaa oo la dhihi karaa hebel ku soo doontay maaragtay ma ogoshahay in lagu nikaaxo saadaraad marka imaam Abu Bakr ibn al-Mundhir كتاب كتاب الشرف على المذاهب حكوا لا معنى استئذان الصغيرة غير بالغة معنى بكم فدي جبر ير آن خانجارين إن لقى عدصده إن لو نكاح مركها وحي رهدين علماء أرنتاس خوا أرنتاس وحا مسؤول كأه ولي جيد ولي مركا محوية هي ولاية الإجبار ولاية ذا لو كلا بحث اختياري إجبار ولي أو خص بكرخفكي ولي جنا سيد فقهاء يرهدان وحوان إنفاذ القول على الغير شاء أم أبى خفك إن أرين لغو فولية قبدي إن لو نكاحو حق قولات أما هديد قفكي مركا حق له أريدتاس إنو سمايكا يا ولي جيدا وحنو كرا آبه هذا ولا الكذا وحلمت أها وليجي أيا مسؤول كأه إنو نكاحو إيضا فسح لويدينين cilada maxay tahay oo weligaas ku khasbi kara qof inuu ku nikaaxo imaam abi xaniifa wuxuu yiri cilada waa yaraanta waa gabar yar macnaha haday weynaato waa xor oo iyada ma aragtay in la soo doonto nin isku nikaaxdo ama codsigeeda inuu aragto lagu bixiyo ama ogolaashadeeda laakiin imaam maalik iyo imaam shaafici iyo imaam ahmed ibn hanbal waxay leeyihiin cilada cadeysay inay weli yeelato waa gabarnimada وبكارة انت ايسان نين لكل من الجورسنين اي جبر اي تحي حتى 40 سنة هدي جارته ولي جيدا وحو حق ليها انو كو قصبو ان لغو دارو هذا بقى سؤاشا ان ويدينا يمركو حي تحي اسلو علماء دي فقهاء دي نودجي قاعدة اي هدان وحي ليهين يعني لا تثبت ولاية الإجبار إلا للحاجة مسقنان كرتو خفك ولي جاه inuu wali u noqdo qof ku qasbanin inuu ku daro ilaa dan haday timaado yaani dan maxay tahay gabadhii way qaan gaartay way farabaxsan rabtaa ninay u baahan tahay inuu nin u arko inuu u wanaagsan yahay inuu ku qasbo ku daro waa markii jirto dan ay gabadha ay leedahay sooma ah laakiin gabar yar oo hadda dhalatay oo guur waxba ka aqoon naas nuugaysa ama 4 jir ama 6 jir ah ciyaari baashaale u baahan tahay guur uma baahnaa see ugu baahatay wali ku khasbo in ma aragtin in loo nikaaxo taa waa su'aal oo loo baahan yahay inay ka jawaabaan haddii ay arinta noqotayna khafta gabar haday tahay inta aysan guursanin mar walba waxay u baahan tahay wali oo yaani khasbi karo oo ninku doono u guurin karo ha ogolaato ama hadiid ha ogaato ama aysan ogaanin taa
iyadana su-aasha aan marka meesha ka imaanaysa waxay tahay haddaba hadalkii nebiga miyaan qaadanaa mise hadalkii ma aragtay fuqahaada? sababto haddaad tirahdo hadalkii nebigaanaan qaadanaynaa, waxaan leeyahay marka imaam albukhaari iyo imaam muslim iyo imaam annasaa'i, abu daa'uud, atirmidi, ibnu maaja iyo axmed ibnu xambal waxay soo wada wariyeen xadiiskii nabigeena calayhi salaatu wasalaam kasoo wariyay abu hurayra radia allahu canhu qaal inuu yiri qaala rasuulu llahi sala allahu calayhi wasalam laa tunkaxu layimu, riwaayad kalena athayibu xataa tusta'mar wala albikru xataa tusta'dan. looma nikaaxin karo, waa reebid, nahyi weeyaan. ma banaana in qaf garoob ah loo nikaaxay. ayim waa qafta ma aragti doobta ah. riwaayada kalena waxay leedahay garoob ah. qafta garoobka ah ma banaana in loo nikaaxiyo nin iyadoon amarkeeda la qaadanin, iyadoon ku amrin ninkaas halay nikaaxay aysan oranin, looma nikaaxin karo. qaf bikra ah oon weligeeda guursanin nin looma nikaaxin karo iyadoon fasax laga qaadanin. markaasay ku yiraahdeen yaa rasuul allah inaha tastaxyi fataskut, qafta bikrada ah way xishootaa, way aamustaa. nabigeena calayhi salaatu wasalaam wuxuu yiri yacni marka idinkeeda waxa weeyaan an taskut, inay aamusto, ama idnuha sumaatuha ama sukaatuha. fasaxeeda waxa weeyaan ama inay aamustay. taa waxay ku cadaysay inay ogolaatay ninkan in lagu daro. yacni waa loo sheegay in hebel kusoo doontay, way xishootay, way aamustay, macnaha way ogoshahay weeyaan. laakiin iyadoon loo sheegin yaan la bixinin. fuqahadii markii yiri qaftan gabadha yar ama gabadha hadiiba qaan gaartay sida maalik iyo abi xaniifa, maalik iyo shaafici, axmed ibn xambal ay leeyihiin, marba haddaysan nin guursanin weligeeda wuu ku khasbi karaa nin in lagu daro, fasaxeedana looma baahna. xadiiskan oo kale waxay yiraahdeen yacni waxaa xadiiskan wuxuu ku cadeeyey inay istixbaab tahay, wax la jecel yahay inay tahay. inkastoo uu khasbi karo laakiin inay wanaagsan tahay inuu iyada u bandhigo, u sheego, laakiin ma wuxuu ku khasban yahay. xadiiska daahirkiisana waxay ahayd nahyi, ma banaana, laa tunkax, ma banaana in loo nikaaxiyo qaf yacni doob ah ama qaf garoob ah ama la gablantay ilaa amarkeeda la qaato. mana banaana qaf inan ah ilaa fasaxeeda la qaato. waxay yiraahdeen xadiiskaas waa xadiis ma aragtay yacni caddaynayo keliya inay ma aragtay inay tahay istixbaab. taa haddii la yiraahdo xadiiskii kalete nabigeena calayhi salaatu wasalaam متفق سوري بخاري مسلم لقى سوري المؤمنين عائشة رضي الله عنها وحلادها يا رسول الله رسولك إلهي تستأمر النساء في أبضاعهن دمر أمر الله وخاتا بدع هذا يعني جورك هذا إذا أمر الله وخاتا قال وحكر نعم هاي النبي عليه السلام قال دحيتر فإن البكرة تستحي خفت البكرة أهوى حشون يساء فتسكد ويآمس يساء قال النبي wuxuu yiri sukaatuha idnuha, aamusnaanteeda ayaa idin ah. kana xadiiska hore sii xoojinaya in ma aragti fasax laga qaato. xadiis kale oo sawiri ibn maajah laga sawiri abdullah ibn abbas wuxuu leeyahay nin asxaabta kamid ah ayaa nabigeena u yimid. wuxuu ku yiri yaa rasuulallah, gabar ayaa ii joogta agoomad ah, gabadh isaga ma dhalin laakiin wuu korsaday, agoon ayay tahay, way qaangaartay, way weynaatay. nin waxaa iga soo doontay xoolo leh, way diiday. iyadana waxay jeceshahay nin faqiir waxba haysanin, kaas ayay jeceshahay. maxaan sameeyaa? marka rasuulkii bini aadamnimada yacni ma uusan oran hala qasbo, laakiin wuxuu yiri zawijuha biman tuxib lam yura lilmutaxaabayni mithlu zawaaj. u guuriya kii ay jeclaatay oo faqiirka waxba haysanin, u guuriya, waana agoon gabadha. sababtoo laba qofoodoo isjecel wax ugu fiican guurka ma jirto. marka xadiiskaasna soo kale wuxuu cadeeyey iyada dooqeeda inay leedahay ay ninkii rabto dooran karto qafti dumarka ahayd. haddii markii ay yiraahdeen weli fuqahaadii fasaxa la qaadanayo ama qafta lala socodsiinayo waa un wax wanaag istixbaab ah, haddaba haddii istixbaab ay tahay aysan waajib ahayn, suurtagal ma tahay nabigeena calayhi salaatu wasalaam qaf loo nikaaxay iyadoon ogolayn inuu nikaaxeeda baabi'iyo? taana wuu sameeyey.
حديث كسوري إمام البخاري إمام النسائي إمام أبو داود ابن ماجه الترمذي لقى سوري خنساء بنت خدام الأنصارية waxay ahayd qof garoob ah oo hor guur u soo martay aabaheedana wuxuu ku daray nin aysan raali ka ahayn nin aysan rabin ayaa lagu daray yani weligii uu qasbay nin aysan rabin ayuu ku daray nabigan calayhi salaam nikaaxii wuu radiyey wuxuu yiri nikaaxaas ma jiro waxba kama jiro nikaaxaas xor ayaa tahay taa haddii marka waxay leeyihiin fuqahaada kale sida maalikiyada iyo shaaficiyada iyo xambaliyada xadiiskaas wuxuu cadeeyay qoftaan inay garoob tahay anaga qofta aan ka hadlayno waa gabar inan aan weli guur arkno bigra ah taa way tan la qasbayo xataa hadday 40 sano gaartay laakiin garoobta ma aha hadday sidaa tahay marka haddii aan helna axaadiis cadeynaysa gabadhii xataa in aan la qasbi karin maxaan sameynaynaa culumood حديث كسور إمام أحمد بن حنبل يا أبو داود ابن ماجه ابن عباس لقصه وريي قبر وحير أن فتاة بكرا قبر بكرة أي النبي قتمد أبه هذا وحو أقوريي نين أيسان إياد الرابين نين أيسان الرابين أي الله قوري فخيرها رسول الله نبي عليه السلام حير دارشة مركا أدقى إسكالا سو هذا ما أقانينها نينك هدارتنا إسكا خبي كرتا هديك هلانا قوركا صحبك مجرى ويدي نكي فردها رسول الله النبي مركو حديثك يعني فرد رسول الله نكاح أبيها نكاح أبيها هذا رسولك وبابي نكاح اسمك حيروح بك مجرى وأنا قبر خفتان قراب معها أبيها هذا ننقصب أقدر نك ما أيسن دوني النبي مركو إشاكتين وحير دارشة هذا إسكالا مرة بتاني كاس أنا سويت حقوق أباها مثل نك مدونيس مدونا يتري مركز يري نكاح أصدق بك مجرى taa marka waxa cadeysay iyadoo gabar ah xataa in loo baahan yahay fasax in laga qaato marka gabar yar oo 6 jir ah ama 4 jir ah see fasax loogu qaadanaa marka فخيرها رسول الله وحصل الفراق فرنك ودعي سو كله حديث كسوري ابن ماجه لقى سوري عبد الله ابن بريده كسوري ابيه بريده ابن الحصيب قف انا اتمد النبي جاء عليه الصلاه والسلام وحي كتر يا رسول الله aabahayga wuxuu ii guuriyay wiilku adeer u yahay si oo wiilkaas sare ugu qaado yani waa wiil iyada ka hooseeyay manzila ahaan si wiilkaas qiimo gaar ah ugu yeelo aabahayga wuxuu u guuriyay wiil oo adeer u yahay anigana ma doonaynin marka nabiga calayhi salaatu wasalaam wuxuu ku yiri haddii aad doontidna guurkaas waa ogolaan kartaa adiga doorashada iskale haddii aad doonaysidna guurkaas waan baabi'inaynaa tanna waa gabar aan weli la aqal galin marka iyada waxay tiri yaa rasuul allah aniga nikaax aabahayga samay maradinay laakiin hadalka ay tiri u fiirsada wa inma in kala mooyaane aradtu waxaan arintaas ka watay an ya'lam an-nas dadka inay ogaadaan an laysa lil aaba'i fi hadha al-amr shay aabayaasha in arinta guurka gabadhooda inanta ah inaysan waxba ku lahayn shaqo ku lahayn iyada inay xor u tahay ninkay dooran karto taa ayaan ugu talagalay dadka inay ogaadaan marka axaadiistas marka aan soo qaadanay waxay ku cadeysay haddii aad tirahdeen waa mustaxab ama waa sunno fasax in laga qaato wax sunno ah looma jibiyeen marka arinta nikaaxi dhacay laakiin waxay cadeysay inay waajib tahay laazim ay tahay qaftii iyada inay xor u tahay aabahan inuusan arintan shaqo ku lahayn una ku khasbin karin inaysan doonaynin haddaba gabadha yar ee aanan weli qaan gaarin aan guurka waxba ka ogeyn xagee ka keenteen in la qasbo in ma aragtay idin la'aanteeda nin lagu nikaaxo ilaan saan soo sheegnay imaam abubakar ibn al-mundhir inuu yiri ma bataqaanabo la macna istidaan sagiira ghayra baligha gabar yar aan qaan gaarin macna uma laha in fasax la weydiiyo ninaan kugu nikaaxina ninka muxuu yahay nikaaxa muxuu yahay guurka muxuu yahay maba oga waxay yiraahdeen marka waxaa daliil noo ah gabadha yar aan qaan gaarin markaan qaan gaarka aan ka soo tagno gabadha yar in fasax la'aanteeda nin loo nikaaxin karo nikaaxi uu sameeyay Abu Bakr Siddiq nabigana calayhi salaatu wasalaam ku daray Aisha ilaan waxay qabaan Aisha inuu nikaaxsaday nabigana iyadoo 6 jir ama 7 jir ah tabcan anigana arintaas waxaan uga hadlay cajaladii ama 10kii ah 34 aan qabo inay ka weynay da'deeda oo qof weyn oo qaan gaar inay ahayd marka 6 jir 7 jir markuu ku nikaaxinayayna
fasax lama weydin Caaisha oo weliba Imaam Bukhari markuu sameeyay baabkii taswiij as-sigaar min al-kibaar in loo nikaaxi karo gabadha yar dadka waaweyn. Imaam Ibn Battal oo kamid ah dadka sharxay Bukhari Sahih al-Bukhari wuxuu yiri xadiiskan markuu sharxay qisadan waxay noo cadeysay gabadha yar in loo baahneen in lala socodsiiyo ama idan laga qaato in lagu nikaaxo sababtoo ah Abubakar wuxuu ku nikaaxay nabiga Caaisha iyadoo ma aragtay yar fasaxna lagama qaadan. waxaan ognahay xataa xadiiska sheegay markii aqalgalkeeda xataa ma aysan ogeyn iyadoo carruur la ciyaarayso wiifow saaran baa loo yeeray wajiga loo dhaqay gudaha la geliyay nabiga dhabta loo saaray mana aysan ogeyn meel u socotay arintaas ay tahay. arinta marka Ibn Battal markuu saayir waxa radiyay أمير المؤمنين في الحديث حافظ بن حجر العسقلاني كتاب فتح الباري استغن وحو ليه دليشان هذا كان ابن بطال او يري دليل عد ما هو دليل laga yaaba sababtoo ah nabigan عليه السلام عائشة waxa lagu nikaaxiyay markay joogeen Makka ahkaamtan waxa la sharciyeeyay markii nabiga Madiina yimid markaas bilaabatay in la yiraahdo khafta dumarka gabar ha noqoto ama yani garoob ha noqoto waa in fasax laga qaataa la socodsiiyaa laakiin waagi Makka ma jiri jirin axaadiisaas oo dhan Madiina ku yimaadeen marka Abubakar waxa laga yaabaa Caaisha inuu ku nikaaxay shariicadan imaanin qaacidada usul fiqh ee qabaan waxay tahay daliisha hadii soo gasho waxa laga yaabaa daliil ma noqoto marka hadalku yiri Ibn Battal waxa radiyay Xaafid ibn Hajar al-Asqalani marka taa waxa yani cad aan arintii inay ma aragti mugdi ku jirto hadii la yiraahdo fasax lama qaadanayo oo wali madaahibta qowlkooda la qaato waxa la diiday ama la radiyay axaadiistii nabiga إلهنا سبحانه وتعالى القرآن كسحكري يعني هدي واحد اسكو خلافتان فردوه إلى الله والرسول فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول واحد اسكو خلافتان إلهي رسولك السعلي وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول إلهي رسولك أطيع النبي هو معصوم لك علماء معصومين ما اجتهاد كذا إلهي ونحرس أجرنا كسيه ويكو خلدمي كران حتى هدي جمهور كساؤبتي سيدا عن صوت شاقني تاوامد سؤالها كلا أم ماشي سويدين تلا كإيمان كرتو حيتهاي قاعدة وحاجة أصول الفقه وكجرت أورنيس المطلق المطلق يعني إذا ترك يراد به الكامل إذا ترك على إطلاقه يراد به الكامل يعني مطلق الشيء هذا الكسي هذه الله الشيء وسيس اللي قد داي وحال لجي ذا الشيء وبوحر لما يسترن هدو إلهي يروا أقيموا الصلاة صلاة أو قدو كذا معنا صلاة أو شروط ذا أركان تويا صوت أكيد صلاة حمي النبي عليه السلام عكيري قم فصلي فإنك لم تصلي استاج الدكو صوت ما أذن دكانين يعني صلاة ده مركو حال لجي ذا صلاة كاملة جور هدي لي رهذنا وحال لجي ذا جوركو كاملة أو لما يسترن هذا بقى قبل ير إلا جور سنة إلهي سبحانه وتعالى مركي القرآن كأهان أفيرنا جورك حكت المامي ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا سدين وحيدين كاقا أبوري لب إيددك لتسكنوا إليها يعني سيئد أقود دكتان دقناشدنا وأين اتمادا اسوافقد عقلي يروح ذي اسوافقد قابكي جركا لو دي جرنا اسحنباري كران عقلي يروح ذي إنه اسحنباري كران سيد علماء النفس يقول المامان psychosexual adjustment يعني نفس دي يجركي يعني sexual أهان إن adjustment كيهن اسكو ميزانيه قبر مركا حد دالتين الناس نوغيس هدي ألغو نكاحو توافقي آوي مركا سي مركا سكنك وجري كرا إلهي دحي وحير هدنا وجعل بينكم مودة دحي وحير الاستجعيل gabadhan jacayl macnihiisa ma taqaan haday dhalatay marka maxaad ma aragtay ka jeclaanay yani see ugu soo baxday shuruudii guurka ilaahadan wuxuu dhaxdeen wuxuu yeelay raxma naxariistii haday ma aragtay naxariistan qofku waxa ku naxariisan kara qofka awood sare adigoo gaajaysan qof raashin hay isaga ku naxariisanay adigoo ma naxariisanaysid adigoon xoolaha haysanin kii xoolaha haysta ka awoodsan isaga ku naxariisanay adigoo ma naxariisanaysid gabadhan yare naaska hooyadeeda nuugaysay hadii lagu nikaaxay naxariis aad ka helaysid maxay tahay oo hatta caalimkii weynaa psychologist asaasay
individual psychologist علم النفس الفرد خفك كليجيسا علم psychologist ألفريد أدلر يعني حوليه جورك كامل كأبوحة وحويان إنه لبط تير الحنبارسين love and care جعل يسك فكرة اسكو حنانين خفتان يرمحي كحنانين كرتا مركز وحير هذين فقهاء دي بنيسي قبل ير إن لجورسده أنا وحام بنيني إن نكاح ودعو إما أنا بنينين إنه لا أخلقله إنه لا سحده وهاجا مرك قرمو لا أخلقله ولا سحن كرا قف كان وحي هذين إمام أبي حنيفة إمام مالك إمام الشافعي وحي قبان دأكم حرنا لا ساح شذا لا أخلقلك أما جوجشي إن لا كل ما دأكم حرنا وحي كحرنتها الطوق على الوطئ إني حنباري كرتو لكولنكي يعني قبلها مثلا وافرجير أما الحجر لكن حاجة ويبورنتها ويلف وينتهي نينكا مركو وبنانتهي إنه لا ساحده أيضا ولي خان جارين إمام أحمد بن حنبل نحوليه هدوبة حتى صاد القاطي 9 سنة ماشي يكون جارته وحال لازم إن لكفصده إن لقصبه نينكي لو نكاحي 9 سنة ماشي يكون جارته يعني طوقي هدو جيرين حتى أما سيدون تبها آته يعني يجبر عليها بالجماع وحال وقصبايا لكولنكي وهاقاق علموي آيات أتسود دليشتين أي كساب سند محل النزاع يدا حلسي أو أها آيات دي فورينك آيات سوحيك هذا شيء قبر أن ولي خان قارن ولا فوري وحاتر هذين فورين عدة مرد عضو عدة وسدح بلاد عدة مرد عضو إيضا فورين دعين فورين مرد عسوهم قور دعين هذا بقور كاسوحو كهد لاي قف أن ولي خان قارن عادو إيمان أو للا كل مي sababtoo hadaan lala kulmin cidda malaha ilaan 3 bilood waxa cidda loogu dhigay maadaama la kulan meesha uu dhacay ilaa quraanka wuxuu yiri ayuha alladheena aamanu idha nakahtumul mu'minati thumma talaqtumuhunna min qabl an tamassuhunna fama lakum alayhinna min iddatin ta'tadunaha dadii mu'miniin hadii dumar mu'minaad aad guursataan kadibna aad furtaan adinkoon wili la akhal galin cidda malaha khaftaas birtan in kale guursan kartaa laakiin gabadhan yar عدة 3 bilood waxa loo siiyay ninkan wuu la kulmay hadii aad tiraahdan waa loo ninkaaxay aydan soo daliishanay aydas ma aysan xaaraantimeen la kulankii aad tiraahdan la kulankana ma banaana illa ay ka awooda ama imaam Nawawi uu yiri waxay ku xiran tahay aabaheedii u ninkaaxay ninka ninkaaxsaday sida ku heshiiyaan heshiiska ku dhaxmaro على كل حال marka taas horta waxay kamid tahay su'aalaha isweydiinta leh oo shariicada islaamka guurku wuxuu tala gashay deganaasho iyo naxariis iyo jacayl gabadhan yar ma ka heli kartaa intaas waa maya aaw marka guurki kaamilka aha soo kale shariicada islaamka guurka waxay u tala gashay taran inay tarmaan يعني الله سبحانه وتعالى قرآن كعكير نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أن شئتم دمر كينا عم حاسس كينا وبير أدورا نيسان أو ما أركتي يعني أبد إن إذن دلان إلهي وحير والله جعل لكم من أنفسكم أزواجا وجعل لكم من أزواجكم بنين وحفدة إله نفس الدين وحيدين كاقيا لي لبي إذا دقور إنا أسقور ستان تحدين نحوكيا لي عرور إنا دشان عرور أو سين نخطان آوي مركب جعل لكم من أنفسكم أزواجا ومن الأنعام أزواجا يذرأكم فيه نفس الدين لبي إذا دقا كيا لي حواليه نسوك لبي إذا دق سيئات وسي ترنتان pre-production out samaysaan isii dhashaan gabadhan khaan gaarin marka tarmada laga sugayo maxay tahay aaw marka guurkii dhameystirnaa ee gabadha khaan gaarin ku dhameystirnaa xadiiskii nabigeena calayhi salaatu wasalaam laga soo wariyay Macqal ibn Yasaar uu yiri nabigeena calayhi salaam waxa u yimid saxaabi oo ku yiri yaa rasuulallah waxaan helay qaf dumar ah oo qurux badan oo diin fiican laakiin wax ma dhasho waxa laga yaabaa in guur hore inay soo martay oo tijaabadaas ay ku ogaadeen inaysan waxba dhalaynin markii inaan guursadaan rabaa nabiga marka koowaad uu u diiday marka labaad uu u diiday marka saddexaad wuxuu ku yiri tazawwaju alwaluud guursada qaf idin dhalayso sababtoo aniga ummadaha ayaan idinkugu faan tazawwaju alwaluud guursada mid idin dhalayso sababtoo waxaan idinkugu faani doonaa ummadaha yawmal qiyaama
سادرادد مركا خفتان يرى وحبا دلينين محال لغا قورسان مركا تن لباد إلى أما تنكلا إلهي يعني قرآن كسكو شاقه هن لباس لكم وأنتم لباس لهن إيغان وحيدينهن لبس أذين كان لبس أي أوتيهن لبس كان وحواي وحكو فيد قرينا يكولا إك قبر ير أو ويلي خان قارن مكولا إكان كرتا لبس مكون نخون كرتا مسكون نخون كرتين ومايا سامركا يعني اسكو فيد قرينا يسان اسكو عبر نخون يسان تان كلايت النبي عليه السلام وحيري ويعني خفت والمرأة راعية زوجة راعية في بيت زوجها وهي مسؤولة عنها خفت للجورسدي وهي مسؤول كتهي جوريجي أضيق يوم القيامة إذا مسؤول كولا ويدين دونا جبرير أو وليبا لا خورين إنه واحد دم بيجشوا سدا ما أركت مسؤولية داس جورك وحنباري كرتا مركا سوكلا النبي عليه السلام حيري واحد جورستان خفت صالح حدا يعني دمرك وحلو جورسدا حوله هذا يقرح هذا ينصب هذا يوناج هذا صالح هذا دين تهان يتن دين تله جورسدا تن صلاة حتى واجبكم هذا بدرتي محل جورسان إيادان سادراد مركا أن إلهي سوك القرآن كحكوليه مركي كهاد لا خفق مهر كذا فإن طبنا لكم عن شيء منه نفسا فكلوه هنيئا مريئا حاله مهر كذا هذا واحد كاسيس وعوني كرتا حلال أيوكويا قبلنا يربحي كلا تخانا مهر ما تخانا حولها سنة ما تخانا سيكون دعي كرتا مرك قبل ير إن لو جورين كرو نين كدأوين هذا ومركا سؤالش كماشة كإيماني سوحيتهاي هدي أتسدى تري سدحذان دليل عن سوق هذا محاكو جوابيسا دليل شكواد آيات القرآن كأهد واللائي يئسن من المحيض من نسائكم إن ارتبتم فعدتهن 3 أشهر واللائي لم يحضن دمرك قبلها ديقو إيمانين أو مفسرين بدن كودو كفسرين إن يتهي خفت أن ولي خانقارين أو قور سامرتي قرآنك وحكسو دقي لغة عربية لغة عربية أنا يعني ومعنيه لو سو لابنا قرآنك سي لوغو فهمه حدبا لغة عربية وحي خبتها خفت دمرك مرة حكت المامتها بنت أما صبية وخفت مركز يرود ألتي إيقور يرأى هدي 10 سنة أي دافتو أما 9 سنة وهدي دافتو وحالوغو مقعاوا فتاه ودلنير ماشي هذا لو كان أكون نقول يكون مقعاوا تين ايج يعني دأذي يعني ما ركت تين كدلنير نماذج أحد حديث ديدي 10 سنة 9 سنة ما راس يصير دافتنا كل هذا مركز وحالوغو مقعاوا مرأة فتاني ما ويكبحذي بنتي نما أما صبية نما ويكبحذي امرأة نقطة خفض جبرة هدي دور خفوض أيهن تراد أيرتهاي سدح وحي كبضا امرأة أو امرأتان لبوا مركيين سدح وحي كبضا مركيين وتراد أن يتوانك يرتهاي وحلو معوا نسوة وقال نسوة في المدينة هدي كبديهن طبعا وحلو معوا النساء دمركي النساء مقعس نساء وحي كسعتها نسيئت يعني نسي وحلو معوا واحد ديب أدعو ربضة وحاجرت لو معاه ربا النسيئة ربضة ديب كلو دقاي يعني خف كان كون دولار وكون ديمي لعكت ما أيضا هاينين حير ديبان كاقر دقاي لك انت سيسار ربا النسيئة إنما النسيء زيادة في الكفر يعني بليه حرم كأمرك إلهي كشي كي وحيري سي دي ريس انت سكسي بطسي نحوه زيادة ويان مركا خفت دو مركا وحالوغو مقعاوي جري حتى واجي جاهلية ده نسيئت وحي كتمد مركا waxaa ka soo daahay mararka qaarkood caadadii si ay loo ogaado inay uur leedahay xalligan hadoo kale ma aysan jirin oo qofka waxyaabo maaragtay cilmiyan lagu ogaan karo in qoftan uur xambaarsan tahay laakiin dadka hore waxay ku ogaan jireen caadada soo daahaysay markaas waxay oran jireen fulana hebla nasiyad yani caadada dib u dhacday yani macnaha waxa weyn uur ay leedahay waa xaamilo markaas saadaraad magacaas nisaa ka yimid nisaa yani waxay ka socotaa qof caado u imaanaysa caadadii ka soo daaxday تاهدان فهمني إلهي مركا آيات مر والبا دروس سيدان وانكو الشيغا
aayadaha markii la fasirayo qur-aanka waxaa loo fiiriyaa sibaaq iyo siyaaq iyo lixaaq. maxaa ka hormaray, maxaa ka dambeeya, tobiga muxuu yahay. tobig wuxuu ahaa furiinku ku saabsanaa. ilaahayna wuxuu ka bilaabay yaa ayuha nabiy idaa طallaqtum الnisaa, haddaad furaysaan dumarkii. nisaa marka waxaan ku tilmaamnay waa qoftii 20 ka dhaaftay ee caadadu imaanayso, caadada ka daahi karto. nisaa ma oranin gabdhaha yar, banaat ma oran, fatayaatna ma oranin. marka walaa-i lam yaxidna, kuwa aan caadadu imaanin, kuwee laga hadlaya annisaa, kuwii aayadda suurad bilawgeed lagu sheegay. waxaa laga yaaba inay igu tiraahdo kishkow cahdun qadiim waay, taas mar horaa lasoo dhaafay, aayad kalaa soo dhexgaleen kadib aayadan timid. ilaahay markuu ku naxariistay ama wuu noo naxariistay, waxaa isla aayaddii marka walaa-i yaisna min almaxiidi min nisaa'ikum, walaa-i yaisna min almaxiid keliya kuma ekaanin, min nisaa'ikum dumarkiini, min banaatikum ma aha, gabdhihiina yaryar ma aha, waa nisaa, fatayaad xataa ma aha, waa qaf weyn ee caadadiina u imaanin, ee ma aha gabar yar. saa daraaddeed marka carabtan waxay ku magacaabi jireen, yani dumarka waxaa jira qaar iyadoo da-deedii weynaatay oo da-dii qaangaarka dhaaftay, caadada kasoo daahdo. taa daraaddeed waxaa arkay fuqahadii inay isku khilaafeen qaangaarka qafta dumarka. waxaan ogahay hadda aan maanta akhristay qoraal walaasheena luul caraweele ilaah khayr ha siiya qortay, oo qoraal si xigmad leh, ixtiraam leh, cilmiyeysan u qortay, iyadoo soo qaadatay aqwaasha fuqahada. qaar inay yiraahdaan qafta wuxuu qaangaartaa 15 sano sida shaaficiyada oo kale, qaar 17 sano, qaar 18 sano. qaangaarkaas waa runteed, laakiin qaangaarka ay ka hadlayaan waa markii caadadii la waayo. mar hadday caadada u timaado kulli waxay isku waafaqsan yihiin inay qaangaartay, laakiin caadadii ma imaanin. markaa waa markii ijtihaadka ay la yimaadeen, ay yiraahdeen caadadii haddaysan imaanin 15 sano hadday gaarto way qaangaartay, maya. caadada haddaysan imaanin 17 sano hadday gaarto way qaangaartay, maya. caadada hadday imaanin 18 sano hadday gaarto way qaangaartay. laakiin caadada hadday timid khilaafku ma jiro inay qaangaartay. marka dumarka caadada kasoo daahdo carabta waxay ku magacaabi jireen dahaa, yani tudaahi rajul, raggii la tartamaysa oo kale wayaan. ninka ragba caado uma timaado, iyadana caado uma imaanin, caadadii kasoo daahdo. qofta waxaa laga yaabaa 25 sano inay gaarto caadana u imaanin, caado aysan arag. ama dumar way jiraan caadada arka. aniga qof mar saasoo kale aan la kulmay iga sheekeynaysa xaaladeeda, kolley arrimo famil ku saabsan ay ahayd. waxay tiri yani furiinkooda arrimahooda ku saabsan. iyada waxay tiri sheekhow aniga 4 bilood ayay hal mar caado ii timaada, 4 maalmood keliyana ii joogta, weligeygan saas aan kumana xanuunsado. odageedan waa ag fadhiyay marka 4 bilood marka dad saasoo kale caado imaanayso, taasoo kale marka cuddadeeda waa 3 ashhur. ama qofta caadada kasoo daahday 25 sano gaartay, way guursatay, waa la furay, ciddadeeda waa meeqa? waa 3 bilood. oo xataa luqadda ingiliiska waxa lagu yahay emenoria. emenoria yani waxa waa kuwa kasoo daahay caadadii, da-deediina weynaatay. waa asbaab yani duruuf iyo caafimaad waxyaaba keena qaarkood. marka sidaa daraaddeed marka aayaddaas ay u arkeen fuqahadii iyo mufasiriintii inay tahay gabadha yar aan weli qaangaarin, ma ahee waxa weeyaan waa qof da-dii qaangaarka dhaaftay laakiin caadadii u imaanin. sababta ilaah wuxuu yiri walaa-i yaisna min almaxiidi min nisaa'ikum. nisaa waxa laga hadlaya ee gabdhaha yar lagama hadlaynin. taa marka aayaddaas micnahaas kale ayay yeelan kartaa. micnaha hadday micnihiina ay soo galo waxaa laga yaabaa, waxaan niri daliil adag ma noqoto. ama tan labaad ee ku saabsanaa ummulmuminiin caaisha, da-da lagu guursaday, anaga saan hore u sheegnay da-daas ma qabni. kuwa qabana waxay yiraahdeen qaarkood waxay gaar u ahayd nabigeena, khasiisa gaar u ahayd. nabiga wax u gaar u ahaa guurka caaisha oo nabigeena calayhi salaam, si nabigeena gaar u ahaa 9 xaas inuu lahaado dadka loo ogolaanin. xaafid ibn xajar iyo qaar kalena waxay yiraahdeen arrintaas waxay dhacday maka intaysan soo degin shareecadii oo ahayd qafta dumarka in fasax la weydiisto. laakiin mar haddii madiine la yimid, axaadiis waxay noo cadaysay qaftan guurkeeda inuusan dhici karin, uusan ansaxaynin iyadoon fasax laga qaadanin, iyadoon loo bandhigin arrintii, iyadoon raali ka ahaan. marka saa tira arkaanu zawaaj muxuu yahay? iijaab iyo qabuul, codsi iyo ogolaasho. marka ogolaashadan waa qaftii la guursan lahaa inay ogolaato. xadiiska aan soo sheegnay soo kale, aabbayaasha
arintaas wax ay ku leeyihiin ma jirto. arintaas waa harin khafta iyada xor u ah ninkay la noolaan lahayd. taas waa tan kale ay leeyihiin marka waa ijmaac oo culimada isku wada raacday. ijmaac ma noqon karto sababtoo ah saddex a'imma oo a'immadii hore ka mid ahaa ayaa arrintaas diiday. imaamka ugu horeeya waxa weeyaan abu shubruma cabdullah ibnu shubruma ibnu tufayl ibnu xasaan addabi. imaam ibnu shubruma ibnu xasm soo wari wuxuu yiri ma banaano yiri khafta gabadha iyadoon qaangaarin in loo guuriyo ilaa ay ka qaangaarto oo fasaxna la weydiisto. wuxuu ku xir labada shardi inay qaangaarto fasaxna la weydiisto. imaam ibnu shubruma wuu diiday. a'immada diid waxaa ka mid ahaa imaam abu camro cusmaan ibnu sulaymaan ibnu jarmuuz albatti cusmaan albatti oo a'immatu shaaficiya ka mid ahaa. isagana soo kale wuxuu qabaa gabadha yar inaysan banaaneen in nin loo nikaaxo iyadoon qaangaarin. soo kale a'immada diid waxaa ka mid ahaa imaam abubakr al-asam abubakr cabdiraxmaan ibnu kaysaan al-asam oo min a'immat al-mu'tazila ah. saddexdaas a'imma hadday diideen mas'aladda ijmaac way ka baxday. imaam axmed bin xambal oo oranaya aniga khilaaf uma arka arrinta inay ka jirto, isagu ahaa qofkii yiraahda ijmaac ayaa wax lagu gaaray been ayuu sheegay. sababtaas uu ka ogaaday waxaa laga yaabaa dadka inay iskhilaafeen. khilaafkaana marka meesha soo galay imaam ibnu shubruma, imaam cusmaan albatti, imaam abubakr al-asam. saddex a'immo oo waaweyn oo dadka a'immadii hore ahaa way diideen gabadha yar iyadoon qaangaarin in loo nikaaxo. ijmaaci wuu ka baxay meesha. maxay soo daliishadeen marka kuwa diiday iyagana? waxay soo daliishadeen iyagana aayad qur'aan oo waadix ah oo suuratu nisaa ku jirto. ilaahi wuxuu leeyahay wabtalul yataama, agoomada dadka agoonta ah adinka aad ka fiilateen imtixaama oo xoolahoodii aad u hayseen oo dhaxalka hore ha ka siinina. goormaa la siin? xataa idaa balaguu nikaax, ilaa ay ka gaaraan guurka. xataa idaa balaguu annikaax, ilaa ay ka gaaraan waqtigii ay wax nikaaxsan lahayn ama waqtigii loo nikaaxin lahaa, da'dii ay ka gaaraan. oo macnaheedu kulli mufasiriintan waxay yidhahdeen yani ilaa ay ka qaangaarto. agoontii waa in la imtixaama ilaa ay nikaax ka gaaraan. marka wuxuu leeyahay imaam ibnu shubruma haddii uusan nikaaxa da' lahaan lahayn, micno ma lahaan lahayn aayaddan ilahay inuu noo sheego. ilahay qur-aanka bilaa macno uma sheego. micnaha aayaddan noogu sheegay maxay tahay? ilaahay subxaana wa tacaala wuxuu noo cadeeyey nikaaxa inuu da' leeyahay. wabtalul yataama xataa idaa balaguu nikaax, ilaa ay nikaax ay ka gaaraan. nikaax ay ka gaaraan waxay yidhahdeen waa qaangaarkii. saa daraaddeed marka qof aan qaangaarin, saddexdaas a'immo waxay yidhahdeen ma banaana in loo nikaaxo. maxay kaloo soo daliishadeen? waxay soo daliil caqli oo ay waxay yiraahdeen tii hore aan u sheegnay wilaayat al-ijbaar laa tathbutu illa lilxaaja. qofka weliga ah inuu qaftiisa weliga u yahay inuu nin ku khasbo waxay ku sugnaan kartaa kaliya markay baahi timaado. baahina nin uma qabto gabar yaraan qaangaarin. marka saa daraaddeed wilaayo looma baahna nin lagu khasbo. marka saa daraaddeed a'immadaas iyagana aayaddaas ayay soo daliishadeen iyo ma aragta arrintan ku saabsan. marka waxaa noo caddaatay meeshaas gabadha yar inaan la nikaaxsan karin ilaa ay caqli ka yeelato, ay ka qaangaarto ilaah qur-aanku sheegay, iyadana ay ka ogolaato ninka loo nikaaxinayo. aan qofna ku khasbi karin haddii dhanka axaadiista aan u fiirino. haddii aqwaasha fuqahaada aan ku dheganaanana waa sida ay fuqahada sheegeen. marka yani qofkana isaga xoro ah ama fuqahada hadalkooda inuu qaato ama inuu ma aragtay axaadiistii nabiga uu qaato. laakiin axaadiista nabiga ayaa ka weyn aqwaasha bini aadamkan ijtihaadka sameeyey. ilaah u naxariiso, ilaah raalaha ka noqdo. mas'alada kale marka aan jeclahay waqtigan aan ku dheeraaday anoo ku dadaalaya inaan soo koobo waa mas'alada ku saabsan waxaan ognahay dowladdeena in ma aragtay maalin dhoweyd ay soo saartay go-aan ah da inay ku xireen gabadha iyadoon 18 sano gaarin inaan lin loo nikaaxin karin. dabcan buuquu ka dhacay, culamo qaar hadasho way jireen oo arrintaas ka dagaalamay. marka mas'aladaas ayaan rabay iyadan inaan xogaa yar aan taabto anigoo soo koobayo. horta arrintaas ku saabsan
da in loo sameeyo qofta lagu guursan karo dadku waxay u arkaan inay gaalada ugu horeeyaan. maya, waxa ugu horeeyay amiirkii mu'miniinta kamid ahaa ama khulafaada kamid ahaa oo Cuthmaaniyiinta, amiir Maxamed Rashaad oo Cuthmaaniga ahaa 1917 ayuu go'aankaas soo saaray uu yiri gabadha waa inay 17 sano ugu yaraan ay jirto ama ka weyn tahay si loo guursado. wiilka wax guursanayna waa inuu 18 jir ama ka weyn yahay. qaanuunkaas kadib dowladaha kale ka sii qaateen, dowlado badan way ka qaateen oo waqtiga ku dheeranaa inaan soo tiriyo. طبعا qaanuunkaas markuu soo baxay culamo ka dagaalamay way jireen. haddii aan soo koobano waxa ugu adkaa oo aad ugu dagaalamay لجنة هيئة كبار العلماء في السعودية، علماء واوين السعودية 1994 كي قوان أدقى كسو صارين وحانا مامولاي شيخ عبد العزيز بن باز إله ونحريسته ابن عثيمين فوزان أئمة علماء كله كجرا وحيلا إجماع وحانكو قارني أرنتاس إني تهارن كتابك إلهي السنة النبي خلاف سان أن لخاذن كرين سو كلا وحان إجماع كو قارني إني سنبنانين كواس إن شرر كودان لغا خيب قلو أقواش ودان لدقيستو ma banaanayra hal iska dhiga tiro kuwa arinta soo saaray macnaha waxay tahay way banaan tahay gabadha hadda dhalatay in loo nikaaxo. taas ayaan ku taaganahay. arinta marka mas'alada meesha iimaanaysa waxay tahay guurka ama nikaaxa gabadha yar ma arin waajib ah mise arin sunna ah mise arin banaan. kulli waxay ku leeyihiin waa arin banaan. waajibna cid tiri ma jirto, sunna waa in cid tiri ma jiro. تا waxaa lagu magacaabo marka luqat alfiqh fuqahada waa almubah waxa banaan. imaam sayfuddin al-amidi rahimahullah markuu ka hadlay mubah wixii almubah ma dalla ad-dalil as-sam'i. mubah waxa shaygu ku cadeeyay daliishii maqalka ahayd oo quraanka ama nabiga ala khitab ash-shari' shari'iga shariicada oo nala hadashay dhagaheenan aan ku maqalnay bitakhir ina doorasho u leedahay ma guurstaa mise ma dhaaftaa gabadhan yar بين الفعل والترك أما إنا تسميس أما أنا إسكدايد مركا دليل سمع هدليل هذا الجور كسي سبب وحكام من نقنا وحياها بنان وحاكم إذا مثلا جناع السجا وأحل الله البيع إلى القرآن الكريم بيع وإذن حلال جور كان السوق اللي مركون نوجش كي حرمت عليكم أمهاتكم وحليتك حرامته هو يمكن أنت دمر حرام تنجأ إلى مركز محير وأحل لكم ما وراء ذلكم تاوحي كدم بيع حلال أي إذنيه marka xalaal haduu idin yahay macnaheedu maxay tahay waa mubaax samaa aan soo qaadanaba ka tag aqwaasha hadda aan soo qaatay dhinac iska dhig fuqahaada qolkooda kula waxa tiraahdaa gabadha yaani aan nuugta hadda dhalatay ama da'da yar ama wili qaan gaarin waa ila waxa banaan in la guursado. haday tahay waxa banaan in la guursado qafka madaxweynaha ah ama dawladda ma u banaan tahay inay arintaas xadidaan. haddaba fiqigeena islaamiga siyaasada sharciya waxay qabtaa qaacido oo oranayso lagu magacaabo taqyiid al-mubah wixii banaana oo la xirxiro yani waxa ku banaan ganacsi. madaxweynaheena ama maamulkeena wadanka waxay awood u leeyihiin inuu yiraahdo dukaamada waxa la furi karaa aroortii 8 ilaa 6 galabnimo. 6 wixii ka dambeeya waa in dukaamada la xiraa. واجب waxa kugu noqonaya madaxweynahaagina ateecdid wa ateecu Allah wa ateecu rasuula wa ulil amri minkum. waxa mamnuuc ka noqonaya dukaankaaga inaad furto. ganacsiga uu ku banaana laakiin uu soo xirxiray uu soo koobay. soo kale madaxweynaha wuxuu xaq u leeyahay guurkan inuu xad u sameeyo. sababta waxa soo qaatay qaacidada taqyiid al-mubah wixii banaana oo la soo xirxiray. macnaha guurkan gabadha yar uu ku banaantahay laakiin dawladdi way soo xirxirtay waxay tiri 18 sano ka yar wax lagu ma guursan karo. badanaan waxay fiiriyaan manuut maslaxa waxay ku jirto. sababtoo ah Umar ibn Abdul Aziz wuxuu oran jiray khaliifkii shanaad radiyallahu anhu tuhdathu يعني تحدث للناس أقضية بقدر ما أحدثوا من الفجور. dadka waxa loo cusboonaysiiya yani go'aamo cusub ayaa loo soo saara go'aamo hore u jirin ay gadaal laga soo saara waxay ku xiran tahay si iyagana yani dhibaatooyin u soo saaraan. markii dawladda aragto inay dhibaatooyin badan ka imaanayaan khaftan yar la guursaday haddana hore laga furayo yani carur ay dhalayso xataa korintii aqoonin ama gabar sawirka xataa la soo diray 12 jir oo xataa yani markaas dhashay oo ogeyn
waxaa dhibaatooyinkaas markay dowladda aragtay xaq waxay u leedahay inay waxay xadido da u samayso. dadkii maamulkaas ku hoos noolna waxaa waajib ku noqonaya inay u hoggaansamaan. sababtoo ah waxaan qabnaa qaacidadii lagu magacaabay fiqiga ahayd taqyiid almubaax, wixii banaana in lasoo xirxiray. waxaa laga yaabaa inaa igu tiraahdid maxaa cadaynaya marka qaacidadaas maxay asal diini ahaan u haysta? ilan waxaan waa ijtihaad fuqahaada sameeyeen oo qaacidadan noo sameeyeen. ijtihaadka mujtahidkan waxaa lagu magacaabaa si culamada yara ijtihaad lmujtahidi kaashifun lixukm illah walaysa munshian lixukm illah. ijtihaadka mujtahidiinta ay sameeyeen, dadaalka ay sameeyeen, just waxay na tuseen, waa iftiimiyey, waxay noo iftiimiyeen xukunkii ilaahay ee xukun cusub oo iyaga ma aasaasaan. xukun ilaahay cusub ma sameeyaan ee xukunka ilaahay noo iftiimiyaan. haddaba qaacidadan ah يعني تقييد المباح waxa banaana in la xirxiro maxaa cadeynaya? waxaa cadeynaya oo loo daliishada xadiiskii soo wariyay Bukhari iyo Muslim laga soo wariyay Salam ibn al-Akwa. wuxuu yiri nabigana alayhi salatu wasalaam wuxuu yiri man dhaha minkum fala yusbihanna ba'da thalathatin wa baqiya minhu fi baytihi shay. qafkii ciida carafo xoolo gowracay 3 maalmood kadib yuusan wax u kaydsanaanin, waa inuu sadaqeeyo 3 maalmood wixii ka badan. yani in xoolaha la gowracay la kaydsado waxay ahayd wax banaan, laakiin wixii banaana ayuu xadiday, wuxuu ku koobay 3 maalmood. 3 maalmood wixii ka badan waa in la qaybiyaa oo nabiga alayhi salaam yiri. sanadkii labaad markii la gaaray yiri waxa Salam ibn Akwa ka sheekeynaya, wuxuu ku yaa rasuulallah nafcalu kama facalna al-aam al-maadi. sanadka hore waxaan sameynay miyaan sameynaa sanadkaana? nabiga markaas wuxuu ku yiri kulu cuna wa at'imu dadkana khoodiya wadakhiru kaydsadana inta doonaha idin kaydsanaada hilibka. fa ina dhalika al-aam kana bin-naasi jahd. sanadkaas sabab dadka waxaa haystay dhibaato, marti badanna way timid Madiina oo faqiiriin oo gaajaysan in wax la siiyo. fa aradtu an tuciinu fiiha, waxaan jeclay dadkaas inaa kaalmaysaan. sidoo kale xadiiskii uu soo wariyay imaam al-Bukhari laga soo wariyay Cabdiraxmaan ibn Cabbaas can abiihi, yani can ibn Cabbaas, inuu weydiiyey. qaala wuxuu yiri qultu liCaaisha, ibn Cabbaas ayaa wuxuu ku yiri umm al-mu'miniin Caaisha, waxaan ku iri anaha nabiy, nabiga muxuu mamnuuc an tu'kala luxuum al-adaaxi, xoolihii la gowracay hilibkooda in la cuno fawqa 3 يعني 3 maalmood ka badan. qaalad waxay ku tiri maa facalahu ila fi caamin, wuxuu sameeyey nabi kaliya hal sano oo dadka gaajoodeen. fa araada an yutcima alghaniyu alfaqiira, nabiga wuxuu jeclaa kii taajirka ahaa inuu faqiirkii wax ka siiyo. dhacdadan marka fuqahada waxay kasoo qaateen xukunkan ah qaacidadan ay u bixiyeen taqyiid almubaax. madaxweynaha ama dowladda inay u banaantahay wixii banaana inay soo xadidaan. waxaan ognaa Umar ibn Khattab saxaabada qaar kamid inuu safar u diiday. safarku wax banaan weeyaan, laakiin qaarkaas uu u diiday, wayna ogolaadeen ileen dowladii hoos yimaadaan. xaraam way lama oran karo, amiir muuminiin xukunka uu soo dejiyay, nabigan xukunka uu soo dejiyay xaraam way lama oran karo. laakiin waxaa nooga baxay qaacidadan ah inay banaan tahay wixii ina xaakimku inuu banaan yahay wixii banaana inuu xuduud u sameeyo. dowlad walba aad ku nooshahay waxyaabo qaar banaan ay xuduud sameeyaan. shaqaalaha qaar yani waxaa loo ogolaya qofka mesela inta saacadood kaliya inuu shaqeeyo, ka badan looma ogola meelaha qaar. dadka taksiilayaasha oo kale mesela waxaa laga yaabaa in loo ogolaya 12 saacadood kaliya, ka badan looma ogola. mamnuuci ka noqonaysaa marka wadankay ku nool yihiin. marka sababtoo ah shareecada islaamka ayaa qabto oo lagu magacaabo taqyiid almubaax, xirxirid wixii banaana. haddaba marka hadduu madaxweynihii ama dowladdii ay tiraahdo gabadha waxaa lagu guursan karaa kaliya 18 sano, wixii banaana ay taqyiid ku sameeyeen, dowladda dambi ma aysan gelin, ee qaacida fiqi ay ku dhaqmeen. ee kuwa dambiga gal waxaan culimada xamaaska isaga hadlay ay yiraahdeen dhiiganaan u daadinayna waxaana kulli soo yiri William James filosoofka cilmi nafsigan aasaasay. qofka hadda aragtay xamaas ku hadlay wuxuu waayay xiilad cilmiyeed ee xiilad aqliyeed. qofka caalimka ah soo imaam Ali ibn Abi Talib ku tilmaamay yamziju al-ilma bil hilm, cilmiga iyo aqliga ayuu isku qasaa. cilmi iyo aqli xambaarsan ayuu dadka u soo bandhigaa, ee xamaas kuma hadlo iyo dadka ithaara inuu ku kiciyo. marka saa daraadeed culimadaas waxaan jeclaan inay isku laabtaan qaacidadan ay ku laabtaan ee oranaysa taqyiidul mubaax, wixii banaana in la xiro. saa daraad marka dowladda waxa u banaan waxyaabo banaan inay xad u samayso. guurkana waa wax banaan
gabadha yar in la guursado ama qaangaartay in la guursado wax bannaan, laakiin xad in loo sameeyana dowladda waxay u bannaan tahay. ciddii dowladdaas maamulkaas ku hoos noolna waxaa waajib ku ah maamulkaas inay u hogaansanaadaan. jazaakum allahu khayran wabaaraka allahu fiikum wasalaamun min allahi calaykum waraxmatun min ladunhu wabarakaatu.